Christina Wilton, haweeney 45 sano jir ah oo ku nool Las Vegas, cariga dhulka Ameerika, waxaa shaaca laga qaaday inay tahay qofka ugu ciyaar dheer ee caalamka. Gacanta bidixda waxaa la sheegay inay tahay 10 fiid 2 inji 309 sentimitir, halka gacanta midigta ay tahay 9 fiid 7 inji 292 sentimitir. Wadarta guud waxay noqotay 19 fiid 9 inji 601 sentimitir, waxayna sidaasi ku gashay world record-ka caalamka. Francisco Domingo waxaa lagu naanaysaa daankii Angola sababtoo ah waa qofka ugu afka weyn ee caalamka. Wuxuu caan ku noqday kadib markuu fiidiyoo soo dhigay baraha bulshada. Wuxuu sidaasi ku galay world record-ka caalamka. Afkiisu wuxuu qaadaa 1 xabo oo sandwich ah. Baaxadda afkiisu waxaa la sheegay inay gaarayso 16.9 sentimitir. Adriana Lewis waxay leedahay carab dheer. Waxay carabkeeda u dhoweyn kartaa qayb walba oo wajigeeda ka mid ah markii lagu daro suxulladeeda. Markii ay ahayd May 2015, waxaa la diiwaangeliyay inay tahay qofka adduunka ugu carabka dheer. Sidaasina waxay ku gashay world record-ka caalamka. Dhererka carabkeeduna wuxuu gaarayaa ilaa 4 inji. Maxamed Ousiyurik wuxuu u dhashay dalka Turkiga. Waxaa la xaqiijiyay inuu yahay ninka adduunka ugu sanka dheer. Cabirka sankiisu wuxuu noqday 3.5 inji ama 8.8 sentimitir. Markii ugu dambeysay ee la cabiro waxay ahayd July 2007. Marba marka ka dambeysa sankiisa uu sii dheeraanayay ilaa uu dhintay. Christina Rey waa gabar 22 sano jir ah oo u dhalatay dalka Ruushka. Waxay doonaysay inay isku ekaysiiso kartoon la yiraahdo Jessica Rabbit. Waxay isdurtay 100 irbad oo silikon ah. Sidaas ayay record-ka caalamka ku gashay, iyadoo noqotay qofka adduunka ugu bishimaha weyn. Waxay sheegtay inay sidaan ku qanacsan tahay.